xafladan aan maanta u joogno oo ah xafladda dhagaxdhigga mashruuca koronto ballaarinta magaalada Boorame oo ka kooban 8 megawatt oo solar, 20 megawatt oo battery storage iyo 5 kilomitir oo ah xadhkaha korontada ama evacuation lines, kaas oo maanta aynu u joogno dhagaxdhiggiisii. Khamiistiina aynu saxeexnay heshiiskiisii oo ay u soo tartameen shirkado badan oo caalami oo ka badan 30 shirkadood, kaas oo u dhacay si transparent oo ay ku wada qanceen dhammaan shirkadihii soo tartamay, laynaguna ammaanay. maantana aan u joogno dhagaxdhiggiisii oo soo socday muddo sanad iyo dhowr bilood ah, soona maray marxalado kala duwan oo xukuumadda cusub marka ay timi maray meel bilowa oo isla markaan mashruucu ku jiray khatar xagga deadline-ka ah. maanta waxaa noo farxada culeysyada badan ay soo qaadeen tiimka ka shaqeynaya mudane madaxweyne in uu marayo aad dhagax dhigtay, isla markaana fulintiisa ay maanta bilaabantay, kaas oo wax weyn ka tari doona koronto jabinta hayaanka koronto jabinta Soomaaliland ugu jirto oo reer Boorame ay u heleen fursad, taas oo aan iyagana uga mahad celinayno shirkadaha Awdal electricity oo markii hore ahaa 2 shirkadood oo shuruudo ku xidhnayd inay midoobaan, iyagana si weyn noola shaqeeyay oo la'aantooda haddaanay midoobin aanay hirgeli kareen mashruucan, kaas oo ay markii hore ku fashilmeen inay midoobaan shirkadaha Hargeysa. shirkadda Berberena ay qayb ka tahay mashruucan oo cuslaa oo ahaa 50 milyan oo ahaa mashruuca ugu weyn Somaliland. mudane madaxweyne procurement-kiisa ugu dambeeyay maanta ayuu ina soo dhaafay oo ah 10 milyan, kaas oo sharaf u ah tijaabooyinka mashaariicda World Bank waqtiga badan qaata in aan muddada sanadka aan ku gaadhnay. maantana uu inoo bilaabmay laydhka magaalada Berberena uu noqday 0.5 oo shirkadii markii hore aqbaleen. iminkana insha Allah marka mashruucu uu hirgalo uu noqon doono qiimo aad u jaban oo maalintii hore madaxweynuhuna uu ku dhawaaqay, marka ay ka faa'iideysan doonaan bulshada reer Boorame iyo maalgashadayaasha kale ee warshadaha. Booramena insha Allah noqon doonto meel lagu soo hirto oo korontadeedu ay jaban tahay oo horumarinta bulshada ay korontadu qayb weyn ka tahay. mar labaad waxaan idinka mahad celinaynaa inaad nagala soo qayb gasheen xafladan aadka taariikhiga u ah mudane madaxweyne. aad baa ugu mahadsan tihiin, kuna soo dhawaada xafladda. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.